السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل حال ومكان وشؤون الحياة. إلهي سبحانه وتعالى أيام هذا بفضله ومنه وإحسانه. الله سأقول الشيء وقال لأنه الله سأول أغرب مرتب بني آدم قد يساء وكلا قرون محاسح محقل دن محا أسود جوكت محاكم وغنية كما أدقتها هذا حقي جوكتا ما حسابتنتا ما حسوستا وحما حريريسا هذه إلهي كوري وحما حقوستا وحما حيرتا ما حريرسنتهي مش دنت هذا إياد حيرسا مرتيا تهي قفكو حريرسن ما waxaa tahay qof go'aan leh ma leedahay hogaamiye dadka hawiye ama dadka muqdisho ka badbaadiya bayle iyo farmaajo oo intii ugu dambeysay ka qaadanaya mise waxaad leedahay niman deelaris ah oo doonaya kursiga farmaajo inay ka badbaadsadaan ayagu qofka doonaya farmaajo inuu kursiga ka badbaadsado ma hogaamiyaa la dhihi karaa mise waxaa la dhihi karaa balwad siyaasadeed qof ay hayso sida madaxda musharaxiinta kuwaasoo arkila dhibaatada haysata dadka reer muqdisho kuwaasoo u baahnaa hogaamiye ka badbaadiya bayle iyo farmaajo kuwaas oo baartay oo bahdilay caawa maxaad joogtaa mase u diyaarsantahay haddaa hawiye tahay iyo digil iyo mirif in caaway aad buuggaaga xusuus qorkaa ku qortid si ilmahaagu kaaga dhaxlaan inaad ku qortid ilaahay wuxuu igu simay in qoorqoor guudlaawe iyo lafta gareen ay erge ka yihiin nin daarood ah ayna erge u yihiin niman daarooda meesha laga ergeynayana uu yahay dhul hawiyo labada daarood dhul hawiye joogaan nin daarood ahaa erga dirsaday wuxuu u dirsaday kuwii matalaya dadka hawiye wuxuu yidhi aniga iga ergeeya ila heshiisiiya nimanka daarood ee jooga halkaas labada gogosha laysaga ergeynayana waxaa ku qalan oo ku gowracan oo ku dhiban dadka hawiye horta ninka noocaas oo hadlayaan ahay i macnaha iska kay cafiya ina cudurdaar macnaha qof iska hadlayaan ahay maadaama qof iska hadlayaan ahay adigoo iska kay dhegaysanaya laftigaaga waa dhibantahay waa ku ogahay dhagaha waa ku xanuujinayaa haddaad farmaajo ciddiisa tahayna qalbigaan ku xanuujinayaa haddaad qaraabadee tahana dhagaha iyo qalbiga waa ku xanuujinaya maxaa ilaahay kugu samay waxaa ilaahay kugu samay in uu yaraa farmaajo heshiiskii hore waxaa saxiixday oo samaystay oo saxiixay oo soo qortay deni caawin wuxuu yidhi nimankii hawiye iyo digil iyo mirif anigay erge iga yihiin oo ciddayda wixii hub soomaaliya ay lahaayeen aan u geeyey oo mariixaan aan ahay oo qof mariixaan oo dambiile aan la arkin laakiin meesha aan ka jabay sida aan u jabay iyo waqtiga aan jabay uu yirday saddexdaasba kama samir karo sida aan u jabay meesha aan ku jabay iyo waqtigii aan jabay waqti abaarahu jabay meel geero go-ohna ku jabay meel halisna waa ka jabay saddexdaas ninka ay ku dhacday horta idan la hadlaaya muqdisho iyo dhulkii hawiyaan ku jabay farmaajo daarood injiraha daarood gaagaabaha ijabshay kuwii ikabi lahaa ayuu wuxuu u dirsaday niman xor ah dekera haysta cashuur aan dhiibin bal u fiirso doqonta ninka u jaba kama kacdo mana ixtiraamto hawiye farmaajo waa u jabeen doqonta qofka ugu roon waa dishaa mana dhaqaalaysato qabiilka keliya ee cashuur siiya farmaajo hawiye waayo bayle maanta wuxuu qorayay in guryaha hawiye ee muqdisho ku yaallo dhan cashuur laga soo qaado mar labaad si loo daba goosto xasan sheekh ma saameyn warkaas sheekh sharaf ma saameyn warkaas
cabdiraxmaan cabdishukuur ma saamayn warkaas cusable ma saamayn warkaas geedi ma saamayn guuleed ma saamayn geella ma saamayn khayrre ma saamayn odayaalka ma saamayn dhalinyarada ma saamayn kuwii wax soo qori jira ma saamayn xataa caliyara ma saamayn laa ilaaha illaa anta caliyara maba saamaynaysa anaa oge waa isaga darsanaa dabalageeleedii boqol ku tahay hogaamiye waxaa la yidhaha marka ninkii dad badbaadiya hogaamiye la yidhaha dad ninkii badbaadiyey ee ka badbaadiyey dhibaatada haysata u soo baxay garab istaagay codkiisa la maqlaayo mayeeraanka u hadla kaasaa hogaamiye la dhahaa kulli madaxda musharaxiinta hawiye kursiga farmaajo inay ka qaataanay rabaan bis laakiin ma doonayaan dad inay sama bixiyaan ma doonayaan taas waxay i tusinaysaa bacd alfarmaajo xataa inaan faroonaa doono ay i tusinaysaa bacd alfarmaajo bacd alfarmaajo inaan faroonaa doono ilgo'naa doono ay i tusinaysaa nin baa iisoo diray maanta wuxuu iisoo diray waa fiiri wey dadku waxay iisoo dirayaan ma fiiri karo dadku waxay iisoo dirayaan ma fiiri karo dadku waxay iisoo dirayaan maxaa yeelay waa ku jiranaya wuxuu iisoo diray baylo dhahaya guryaha dhan waxa laga qaado guryahoo dhan muqdisho lacag ha laga soo qaado xaggeen geynaya aniga markaasaa fiirshay war dadka wax fiirinaa ma jiraan maya dowladdii sooma dhicin haa reer muqdisho maxaa loo qabtaa waxba yaa ka qiimo badan reer dhahar wasiirka qorshaynta qaranka wuxuu yidhi magaalada soomaaliya ugu ilmaha badan waa dhahar meeshaan ku maqlaan fadhaa bartan ku maqlay aan fadhaa waa yaabay bartan ku maqlaan fadhaa wuxuu leeyahay soomaalida dhahar matuula mise waa degmo meeqa eeraboolay leedahay meeqa waxbaa ku yaalla waa aan tirtiray almuhim waxaan rabaa inaan ka hadlo caliyara wuxuu la qiirooday alcadaala wuxuu la qiirooday war annaka sanadkan habar gidir dabadaan ku arsanaynaa dabada laa ilaaha illaa anta subxaanaka dabadaan ku arsanaynaa wax mahmaha qurxoon maaha laakiin nin baa wuxuu yidhi wallaahi bilaahi waa yidhi intii la tarxiil lahaa dabaydaan ku arsana waxaan rabaa marka abgaal iyo majeerteen intay wax noqolahayeen war fiiri abgaal iyo majeerteen hortooda habar gidir nooleed gadaasheedna waa noolanayaan alcadaalow haddii uu kuu sheekeeyey gacma dheere oo uu kuu sheegay dembiilaha habar gidirta dembiga ka gala oo hawiyaha dembiga ka gala lama xisaabiyo hadda kadib waa la xisaabinayaa insha allah xaqna umaba lihidba inaad soo ag istaagtid faraskaas odawey ah adiga in lagugu bedelo oo uu kuu sheego adeerka gacma dheere in si qaab daran loo qaraabto oo cidna aan loo istaagin hadda ku hor ayaan xasuustaa aniga nin la xuseen xeshin shidane gacma dheere waxaan wada ahayn cakaaro guri ayuu ka deganaa taleex shidan alla hadlay wuxuu ku yidhi ma garanayo caawo ma garanayo gacma dheerow adiga maxaa kugu wata waa maxay adiga sidaa u dhaqantay shirkii soodare waa maxay cabdullahi yuusuf oo u camirtay say wax kaa yihiin adiga xaggee u socotaa maxaa kaa galay adiga niyahu say wax u jiraan kaasuu wuxuu ku yidhi aniga shidanow ana uba koran ahay cideeda dad ha dagaal badan u diyaarsan maaha ciddaan habargeed sacda u horreeyay halkaas qoortayna iga taagan yihiin meel aan lacag ka samayn karo bilcagsiga inay aadamaha lama arko ideologiga noocaas aheed ayaa waxaa lagu shubay ninkii la dhihi jiray maarta alcadaala maya magaalada muqdisho fiiri magaalada muqdisho soomaaliya waxay uga bedelantahan ku sheegay adduunka 60 sano ugu dambeeyey wixii gabood fal soomaaliya sameeyey magaalada muqdisho ku nool yihiin hargeysa kuma noola boosaaso kuma noola waxna kama ah weliba waxbay ka yihiin 60 sano ugu dambeeyey dadkii soomaaliya wax laayay dafle morgan biixi ay dhalay fahad yaasiin mid ka daran shabaab wax qarxiya cali geedi
haddii ilaahay ku runan yahay ninkii la dhihi jiray gacma dheere fiiri gabbood fallada dadka geysta oo dhan gurigooda muqdisho waaye meeshaas marka waxaa ka muuqanaya dadka muqdisho haddii farmaajo ka taga xataa inaysan wax rajaa lahayn wax rajaa male maxaa yeelay waa dadka uu ku dul noolaa karo baktiga diqsiga ku dul noolaa kara wuxuu markay dhintaan male waxay isaga difaacaan baktiga male waxaan rabaa marka inaan kuu sheego dadka muqdisho waa dad u nugul qurunka iyo baktigu inuu ku dul noolaado active maaha caalamka fiiri dambiilaha hargeysa laga doonayo laga baafinayo dambiilaha boosaaso iyo garowe laga baafinayo dambiilaha laga baafinayo amnesty international dambiilaha caalamka baafinayo meesha uu ku kobco ku baraaro looga sabciyo airbortka looga soo dhaweeyo magaalada muqdisho waay ninka marka dadka noocaasa 2021 inuu hadal ku baraarujiye raba horta asaga abadaal u yaala anu waa daala waa ogahay laakiin damiirka ay wada ma aamusi karo maxaa yeelay ay dhahay saana isaga dhimana waxaan rabaa marka inaan mid ku sheego caawa waxaan joognaa buugga soo rog talyaanigaa la su-aalay bartire ka fiiri bartire non lo so bartire ma aqaano non hai scritto kuwa halkan ma ku yaallo ma bartiraan buugga ku olin ha waay bartire waa xanaaqin warnuu leefaan ku jiraa leefaan ku jiraa moogtahay warnihi waa fiicanahay waxaan marayaa caaway hadda ku hor niman bartire leha xanaaqi ma garatay waxay ka xanaaqeen buugga ma ku qoran talyaaniga yiri buugga hadda bartire meeshan kuma qorno ma garatay waa buufloobeen caawa waxaan maraynaa hawiye buugga kuma qorna wuxuu yidhi farmaajo qoorqoor iyo guudlaawe anay ergeciga ahayeenoo muqdishoy marti ku yihiinoo niman daarood ay ergeciga yihiin marka cimrigayga waxaas igu sumay ma garatay nimanka gobasha lahaayo ayagu in loo soo hoydo xaqu lahaayo guryahooda la joogo farmaajo ay ka ergeeyeen macnaha milkiyadda muqdishoba ma lihidin waayo marka waxa igu dhacay haddaan ooyin xataa iga bixi cabaar waa iska ooyi lahaa ooyin xataa iga bixi mee horta niyow laba waxaan rabaa qoraalkayga waxaa kamid a qoraalkayga meesha ku qoran waxaa kamid a soomaalida intaan hawiyaha ahayn hawiyaha waxay u sheegaan qabyaaladda iska dhaafa okay soomaaliya waxaa la ixtiraamaa kuraasta fiican la fadhiisiyaa VIB da oo looga kacaa ninka la yidhaha kaaba qabiilka beesha ninka la yidhaha ogaaska beesha ninka la yidhaha garaadka beesha ninka la yidhaha boqorka beesha ninka la yidhaha isimka beesha ninka la yidhaha wabarka beesha nimankaas kuraasta waa looga kaca VIB da la fadhiyaa soo ma horta dhegeyso walaal jamaal hadda waqtigii taliyii hore maxaa siyaad bara waddanka ka baxay USC markii xawar qabsatay ayaa nin reeraheena oo gela ismaaciil oo jira markii xaaladdu xumaato dadkii magaaladu isfahmi waayeen odagiina ka dhex baxay uu gabay afarre iyo tiriyo wuxuu yidhi anugu ninkaasaa warkiisu ku soo afsharay dadkan iyo wixii lasoo maro oo dhan 1992 ay ahayd wuxuu yidhi odagii Somaliland u tagay maalmo ka horu waxaan idhi mushkilad baa dhacday mahadhaceebe waxaan idhi dadkaagii ismari mawjada ahaa burug maarug weeyaan adeerow guryihii muunada ahaa markaasuu yidhi maandhow dhambaal iyo maqaal maandha waa helaya martiba halkaan igu duwan bulshahoo badane muraal jabinta ay igu reerayaan maduun ahayd muqdisho masiibada la badayaalna murugo markaa dowladnimo maamushee murugta hawshii madhabkeedii gara weyde iyo maamka loo hago iyadoo miryad loo xiro midow gobaaleedle ku macsuuma jeerteenka baraaban barixaanka qoryihiinni waa haystaa qaraxa waalaa hadba 2,000 oo qiimagala shishka qabadsiiya nidoorkiina wada qaarajiya kuma maaxigiye markii laba qaran la isqabsaday qooratiris gaadho waddiina adikaa tirtiray qaaliga ahayde gaburaha intaa tagtaan ciidankana keenowi markii amxaaradu timid oo cabdullaahi yuusuf la yimid wiil aaka la hordayna arkay xabadihiina annagu aan isku dhammaynay aan anugu goostay adiga marka halgamaa oo ku macsuuma jeerteenka baraaban barixaanka madaxweyne foorara hawooye uu bir leeyahay dameerkii filaariyaha laafida kiciyaan ugu dhacash saaxiib dadkan aad leedahay
qaatay kuwaan ogeynaa jiro waxay aaminsan yihiin maya caawaya farmaajo wuxuu yidhi qoorqoor hadda kahor farmaajo wuxuu yidhi daniyaa qorto uu yidhi wixii qoraal ahaa ilhaanadaas ay nimankay la taallay caawa wuxuu ugu daray anay erge iga yihiin warya aniga anyaa iqaadaan ma maqasha hadda kahor ninkii cayrka ahaa ee ciidankii sayidka soo raacay below dhowra kacay cali below anyaa iqaadahan taaganahay aad baan kuu salaamayaa hawshaada iska wada anugu waa horaan samfadhiinaadeen aad baan kuu salaamayaa guul iyo gobonnimo هيا علي وقوليس إن شاء الله وحنا رامرك إن دوبنا ليال راديو درقمان أقاضو راديو على أقاضو راديو أويا أقاضو كل مسلم مجرتينكم حقا كسو هاد الجيران أقاضو هادي برارو أقاضو على كعين أقاضو عرادين هذا يكون تالا this is أنا كوشمتي أنا قديس دوري نجي هذا جو سباحة وتي وحنا رامرك أنا كوشم والله بالله والله وحوي كل عي هدي فرماجة عاو اسكتكو حتى عبار كفتك وانا وحمانا عبار كفتك وانا وحمانا يا إيه بعضو نقدر ولا واي أنا إنك تجي ما نيجي أسكت بوي كل يهدون الله ما جرت مرة حرام لا وانا وكل ما كفتك من كرنا ورمانا هرت واي أنا إنك تجي بوقتي أنا نكون فردية وأنا أغلى دين تلفزيونك إيه وريالك صونا راديو مقدشو أيا وحي سوقرن مقالة النهر دد قبتي أو عقعد oo boor iyo qiiq jooga oo sarwka ag muuqan oo reebaadiyaa dollar qaata dali maxay ku darseen war bal reedhaalow dali maxaa ku darsateen kuwiyaa la soo qoraya wasiirkii waxaa naqsan yahay wasiirka qorsheynta qaranka waa ninka kalluunka oo dhan iibsaday hawiye moogtahay hawiye ka dhalo oo saan ha u jabeen xanuun ma dhaafo walba tira ku nool iyo digdig ku nool la ugu sido markay buuflowdo xogaa saacadaa waa nabad gashaa buuflowgiina ma hayno la ugu sidiyoo fadhiisatay oo mar dhurwaagees ka soo gelayo mar weergees ka soo gelayo odaga owr table maxamed cabdi yuusuf wiilkiisa waxa uu qoraayo kaaga daran caliyara wuxuu ku leeyahay nimankii la xabadeeyey iyo wixii muqdisho dhibaatadooda loo geystay banaanbaxaya iyo wixii guri loogu dhacay iyo wixii baydhaba lagu laayay dhahar maxaa loo weeraray oo caliyara soo qoraa in yar haddaad joogtidba caliyar ma kugu soo dhaca in yar haddaad joogtidba caliyar ma kugu soo dhaca laa ilaaha illaa anta war caliyara maku habaari naqaani in aad rabax ilmahaaga naagtaada aad xoogaa waa aruursatay orad aad magac fi horta cali waa iska noolaana maxuu noolaana gacma dheer ahlu sharaf waaye algeeda ahlu sharaf waaye morgan muqdisho ahlu sharaf oo ka yahay hargeysa hallay ahlu sharaf oo ka yahay haddii ilaahay canjeexi laayey قولوا أهل شرف وكيه كوي درنا الشيخ شريف لا أهل شرف واي يا حسن الشيخ كوي عبد الرحمن وسئل ما قد أهل شرف واي ولا ضل عسيان نكي وحد لا نكي نهوية دل ولا قيمة دنيا لو هيستا إلههم جرتين محمود سلبان وعقلي ليه هيني وهو بحث تاني إنه جميل هل كاس قرطة واستجابوا أنت نجوي أفو أنت كجبي أنك أجبني والله بالله والله وإنجيل كما كعيا سيدا أوجد واحد ربع المادة ريالو قبيلك haddii uu yahay midka Finland la iga qoray magaciisa yaa tahay Soomaali waliidi yaa ka tahay hawiye qor yaa ka sii tahay qor habargir yaa ka sii tahay cayr la iga qoray wadankan ciisaan ku jooga ilaahayna waa qabiil iyo shucuub uu naga dhigay cidna ma ku dulminaya laakiin waxaan ka hadlayaa waxay tahay shalay in lala fadhiyo beled xaawo Soomaaliya waa israacday Soomaaliya ma laban marixana israaciya labaatan naagood oo maryo dulaf wato dhar jooga in wasiirka qorsheynta qaranka uu ka hadlo wixii muqdisho ka dhacay oo ka hadlin gacanteedii waa lagu cunay gacantoodiina waa lagu cunay warniyo ninka ma jirtay oo labaada dhaho kulama kaftama kare waxaan ku weydiinayaa jamaalow cudurka covid-19 kii inta ku baxay oo hadda weekor lix brikor covid-19 kii aad loogu baabaay xamaro lama dhaqaaq karo iskool lama aadi karo oo shalay maxaa dhacay markii covid-19 doqonnimo ka weyn baa jirta horta fiiri covid-19 doqonnimo ka weyn lama arko aniga covid-19 wax ka weyn doqonnimo naysa laakiin waxaa la yaabay dadkan loogu ciyaaray goor la daaweyn doonaa fiiri covid-19 ka markii wax yar oo xasan daraan soo covid-19 lala soo baxaa oo cudurka waa la baabwaal digtaa hadda isbitaalada dadkii maalin hore la geenaayo covid-19 jiray oo madaxweynihii iyo wasiirkii rafid kulli ka hadlayeen shalay kulligood ayaga dhanaa garba isku wadahaayay 200 ilaa 2,000 qof isku soo baxday
cudurkii lagama hadlayo dadka ma jiran yihiin dadkaan oo dhan wax maa lagu sameeyey maal xuseen wax u jira aan ma fahmin wixii jira anaa meeshaan ka sheegayey adiga waxaa ka hadashaa adoo nin majeerteena baashaal oo waxaaga ka hadal aniga anaa sheeganayo waxay ahay aniga sata malaadiyo cudurrada dabargoynta dhan doqonnima ahaysa hooga ahaya talxuma ahaysa ilgooya ahaysa ninkaas cabanayaan ahay ninka muqdisho gogashii uu lahaa farmaajo mariixaana uu leeyahay niman daarooda ii doona uu sheeganayo babliku soo qorayaan ahay marka aniga anigu kulama kaftami karee meeshaan waa ku cabaadaye meeshaan waa ku cabaadaye hadda ina imid gaacidartidna labaada ka dhaho haddaadan rabin adoo majeerteena baashaale ka bax waa kula cabaadaya ukaadi iskuma ugu barandarsan dadka dhan wada hayste macnaha waa dareemi karaa walaalkii aad tahay nin soomaaliyeed aad tahay dhibta dadka haysato qof kastana waa qabsan doontaa ninba maalinay haysataa haddii dhibtaan laisku fiirsadana ninba maalinay usoo socotaa oo biyo soo socdo waayo oo lawada moosaaye ninkaan dhibuu dadka ku hayaa wuxuu rabaa dictatorship sida eritrea oo kale in dadka sokorta iyo shaaxa loo cabiruu rabaa koodhi marka waxa waaye laakiin ani hadda waxaan la yaabanahay oo dhallinyarada darsinaya niyoosoo dhallinyaradan hadda meesha qaar waxaa arkaya xataa meesha hoos ku caytamay dadka soo ma oga in madaxweyne farmaajo la doortay 2017 iyo hadda muuqdo muuse meesha ku dhalana boqor uuseen waa la doortay xasan maxamuud sheekh shariif ka horeeyay oo meesha fadhiyaan oo ayagana shalay madaxweyneyaal sawiradooda iyo fiidiyoyada lahaa ay madaxweyneyaal dadka ma jiran yihiin marka maanta doorashada la iska rabaa wax kale xumaan lagama rabo qoor iyo ninka la dhaho puntland waxaan dhihi lahaa hadda farmaajo waqtiga waa ka dhammaadiniyo intii hore hala soo shaqeeyaan ha ka baqaan oo muxilkin ka qaadaas laakiin hadda xilba maba qaadan kara saa nafta haysaay hadday maanta dhahaan madaxweyne doorasho qabo soon istaag anigu ma malayn inuu ku samayn karee warniyo bal waa fiican tahay warkaaga waa maqlaan nimankii hawiye hadday nin daarooda warkiisa maqlaayeen kaagaa ka fiican ha maqleen war xilkan leen kama qaadaya nin majeerteen idan dhahay ninka maraxa dhegeysanaya waa ku salaamay cabaanka oo iga tag waxaan rabaa marka inaan dhaho walaalayaal aniga waxaan ahay nin qabiil ah hooyada fiiri waddankan waxaa la yihahdaa dhulka aabbaa la yihahda dhulka aabe soomaalidu waxay dhahaan dhulka hooyo laakiin halkan waxaa la yihahda dhulka aabe ayaa la yidhahdaa finland waxay dhahaan isan ma dhulka aabe okay dhulka aabe iyo aabbaha oo aad ku abtirsatid in waa ceeb lagu yidhaahdo soomaalina lagaaga dhigo mariixaan wuxuu huba iyo beebaa qaato meesha tegay soomaaliya waa israacday iyo dhahar 40 habrood oo dharkay ku dhammaadeen oo midha kalluunsay u soo cunayeen boorka ka caada malay karin soomaali lagaaga dhigo in muqdisho wixii dadka naga ku dhacay aan laga hadlin maantayna beyle uu leeyahay guri kasta oo ama jirdiin laga dhisay ama meel kale laga dhisay waa in lacagta uu ku dhisaya kala bar laga soo qaadaa qof u naxaya aan la arkin caawa maqribkiina ay kuu soo yeerto awal baxoole ma qabine qoorqoor iyo kii kale waa erga daarood oo daarooday erga u yihiin ayaa iqaadahay magac siciid faarax xaraaro waxa sheegta ma taqaan uu waxa sheegay waa qowayay haye balaan ku darsaday jamaalow adiga iyo akhyaarta dhammaan waa idin salaamay walaalow macaano horta annagu intaa qaylin karna waa iska qaylinaynaa dhibkana haystaa haddii run laga hadlo horta waxaa fiican dadka in xaqiiqada horta hore laga hadlo maanta aa u jeedid iyo wiigaan hadeertaan tigrey waa aragta waxay maanta wiigaan samaysay tigrey waxay samaysay inay intay ciidankii 1 milyan oo lagu soo daabulay meeshii inay intay soo dhabar jabiyaan ee buuraha ka soo daataan markay magaaladii ku hubsadeen inay ciidanka soo galeen inay ileen deegaankii leeyihiin luqluq ay u qabtaan nolosha ku qabteen intay laayeen maana inteedii kale horta marka waxaa fiican oo in dadka isku sheegaan ah qofka markuu horta dagaalamayo dagaalka looma dagaalamo way kaa tira badan yihiin waa yartaa looma dagaalamo waxaa loo dagaalamaa caqiido iyo target qofku waa inuu target leeyahay marka taas waxaa ula jeedaa dadka muqdisho tiro iyo awood intaba way haystaan laakiin hoggaankiyaa qaldan in adeero hoggaanku wuxuu ku qaldan yahay nimankaan hogaamiyeyaasha sheeganayo ama midow ama ha sheegtaan ama magacay doonaan ha sheegtaan ina adeero target ma laha targetkiisa waxay tahay ummadii saas u leedahay oo inuu beyle yiraahdo maanta darjiinka lacagta ku samayso kala baro kala waa inaad dhigtaa sababtu u leeyahay waxay tahay dadkii lacagtaas laga qaadayay haddii la tusi lahaa fiiri wasiirka dhahar ka soo jeeda dhaharay aduu meelaa ku taalidba ma aqaani wuxuu taagan yahay dadkaygii shalay kibirka wax haysta male kibirka u bannaan baxay amnigooda puntland ay sugtay dadkaygiyaa la xabadeeyuu taagan yahay nimankaa musharaxiinta waxay dhihi laayihiin waryaa bayle
واللعق ميا كانت ماي دولدي واحد علي تتكلم حكى ربطها وردك نودا توقي واحد هلاي hadda maya hadda jamaalow hadda waxaan ka hadlayaa waxay tahay fiiri tigray mashinkooda waa habar gadir iyo tigray ayaa isku dhigmo Ethiopia waxay og yihiin baddaan ku soo socoto ama amxaara ahaado ama oromo ahaado mowqif ay ka midaysan yihiin manhaj ay aaminsan yihiin iyo target iyo meel ay u socdaan ayuu qofkan tigrayga u dagaalamayaa laakiin qofka hawiye mowqif iyo target uu u dagaalami lahaa dadki tusi lahaa tigrayga waxa weeye way aaminsan yihiin saraakiishooda aaminsan siyaasigooda aaminsan hadday dadkan qabsadaan deegaankooda qabsadaan in la tirtiraayo laga beeraha lagu falanaayo wax walba intaasoo dhan ay og yihiin marka hadda walaalo macaano annagu horta raabin walba waa qaylinayna ka daalimayno laakiin waxaa loo baahan yahay 20 kaanin oo sidii xoolihii isku daba socda deg xalanaan aadaynaa darreg jasiiraan fariisanaynaa war ummadda ay matalayaan hadday tusaan taargetka ay damacsan yihiin in ay tahay in lagu soo duulay waxoodii la billaqaysanayo oo isbaaro meel walba loo qaatay isbaaro baddii loo dhigtay hawadii loo dhigtay dhulkii loo dhigtay xaafadihii loo dhigtay hadda xaafadihii intay ka tagtay weliba ganjoolooyinkiyaa loo dhiganayaa marka haddeese dadka aysan dareenkaas aysan tusinin in adeer maxay micnaa ay leedahay kursiga u socda aniguba kursi waa jecla inaan qaato laakiin waxaa ka horeeya oo ka micno badan inay dadkayga ay xorriyad iyo maxaa la yidhahdaa ii sheeg waxa dareenkooda ay ka hadli karaan laakiin waxaa la leeyahay waxaan u socdaa beel caalamaan u dacwo tagaa daniya aan noo hadlaayo daniya masiir u dhiibanay in adeer gacali waxaa fiican in la xishoodaa fiican anu waxaan aaminsanahay anoo mucaarad ah oo dadkayga dhibaatada haysato idamqayso anugu maanta nimankaas musharaxiinta waa la laaya haddii la yidhaahdo waxaa iga xanuun badan ummaddan masaakiinta dhibaatada lagu hayaa iga xanuun badan marka qofka hadduusan xanuunkii walaalihiisii dadka deegaankii oo uu matalay uusan dareemaynin uu lacagta u hayo uu la sugi doono xildhibaan lacalla xildhibaan imaan doono hadduu la sugaayo in adeeru gacali hadal nooma furno dadka waxaa fiican marka waxaan ka hadlayaa waxay tahay oo aan leeyahay dadka war niman yahow dib intaas kugu noqotaan har iyo habeen halkaan way una dhegaystaan oo way daawadaan oo lifekaagay la socdaan saacaddaa soo gashay xataa ogyihiin war waxaa leeyahay war waxaa ku dagaalamaysaan iyo waxaa raadinaysaan ummadda u tilmaama halkaasoo soconnaa dhaha bal cid ka harta cid inaysa ka harayn oo wada raacayaan aan hubaa laakiin maaha micnaha inuu noqdo taargetka dhamaa inuu noqdo maaha micnaha beel xalana iyo farmaajo uu ku darsanaayo maaha war ka hadla dhibaatadan dadka haysato war lacagahan bilaashka oo dadka loo gurubsanaayo oo nin ka yimaaday maxaa la yidhahdaa ii sheeg meeshaan ay ka muddaa dhahar nin ka yimaaday ayaa bishii wiigii wuxuu ku xisaabtamaa $200,000 maxay tahay macnaha waxaa fiican qofka inuu yaxyaxaa fiican war kursigaa u socotaan iyo madaxnimadaa u socotaan waxaa kaaga muhiimsan oo baal dahab ka galaysaa dadka aamatashay deegaanka aamatashaa baal dahab ka galaysaa xuquuqdooda raadiyaan leeyahay waana ku salaamayaa aad u mahadsan tahay waxaan rabaa fiiri muqdisho 19 Febraayo la sheegay hadda 219 Febraayo 4 sano haysata 219 Febraayo ayaa 4 sano haysata musharaxiintan beelaha weeye u badan ma farmaajo kursigiisoo qalalanaad rabtaan mise dadaad rabtaan cod leh oo hadhow idin doorta dadkii waa baabeene ma waxaad rabtaan dad mooraal leh oo hogaamiye ay leeyihiin dabagala mise waxaad rabtaan dad aad farmaajo ka dhiganaysaan war hogaamiyaan rabnaa u naxa mujtamaca iyo dadka dhibka haysta oo baylo ka qabta war hogaamiyaan rabnaa ka fikira stop lacagtan dekadii airborka stop lacagtan dekadii airborka stop lacagtan dekad aan rabnaa maxaa lagu qabtaa maxaa loogu sameeyaa dadka nin dhahaan rabnaa halo mukhtaar waxaan rabaa marka saaxiibkay waxaan soo qabanayaa halkaa nin ee halkaas iga soo wacayo nuur la dhaho nuur nin la dhaho iga soo waca halkaasaan rabaa waxaa nuura u qoran nuur nairobi joogaa wallahi niyo magacii waa la ahay saaxiib ma aani kusoo qabalahay magacii waa la ahay saaxiib ma aani waa qoranayaa mar raba magacaaga inaan sheego laakiin nuurow magacii ma aqaan messengerka iga soo wac ninka nairobi joogo saaxiibkay iho waa isgaranaysaay waxaan rabaa marka inaan mid kuu sheego ilma adeerayaalo waxaan u baahan nahay farmaajo dabadiis
iyo haddoo la joogo waxaan u baahan nahay qof yidhaahda waxaan u naxayaa dadka waxaan nahay mid naxariista hogaamiyuhu waa naxariistaa hogaamiyuhu ma aha balwad kursinimay hayso hogaamiyuhu waa nin ay hayso naxariis raqbad iyo wanaag dadka shacabka dhiban ah 19 febraayo waxaa ka xanuun badneed gabadhii bistoolada lagu qabto keligeed hada microfonka wadata 19 febraayo waxaa ka dhib badan ninkii meydka ahaa ee bijiga lagu waday 19 febraayo waxaa ka dhib badan 4 sano hooyooyinka oynayo ilmahooda la qaato war muqtaarow asalaamu calaykum وعليكم السلام حد إليه niyahu waxaan rabay inaan ka hadlo nimankan qoorqoor iyo guudlaawe iyo qoorqoor labadan horta taariikhda in lagu qoraan rabaa iyo midkaan ilayo cumar finish way maayaan adduunyada hadday joogaan waxay cunaan oo ilaahay u qoro waa helayaan laakiin say wax ku raadayaan si xun waay magac ma rabaan ceeb kama xishoodaan ammaan ma rabaan waxay xaji 50 dabada ka saareen subax kasta waaga dabari qoorqoor waa kana soo qari daweyn meesha soo qoslaa qarab dada ma tashaama aaminsan dadkaaga la tirtiraa ma aaminsan wuxuu cunaa intay gaari doonaan ma yaqaano goorow waqtigiisina asiga waxa laga celayna waxa laga yaabaa xabadda asiga baarka looga dhufalahay ninka wada inuu wardaayo ma fahanti صح ninka dili lahay inaan ka celayna laga yaabaa moqt hal mar gadaal u naqamaayo waabsamina maayaan aqlina ka sugumayno nimankaan musharaxiintaana dadka eedaya ma jecli inaan la eedin nimankaan kuraasay raadihayaanna badbaadadayna ku jirtaba فيري كرسي الرادينيسيد ما waxaa u raadinaysaa naftaada mise ummadda meesha degan oo dhiban annaga laftirkeena waxaan naga rabaa taqarrubu ila allah inaan ilaahay ugu dhawaano ninkan waa mujrim nagu soo duulay guryaha inuu naga qaato rabo inuu wad baabiye rabo inuu dilo rabo nin walba soddon beebe iyo 20 beebe la yimid hal sheega halaa qof kastaba hal sabano weyn iyo laba xaba gato فيري waxaan ka rabaa فيري بيلا saaki wuxuu yiri laftirkeena war inaan joogno lama rabo qof ala shakhsi halkan meeshan waran ku haynaa فيري meeshan waran ku haynaa xabad hadda kuma haynee بيلا wuxuu yiri ما hadda meeshan ka hadlayo anu leefan ka hadla leef xabad laga mariday فيري maqal waxaan xamar way ku xabad in laga rabay بيلا saaki wuxuu yiri guryaha waa saaki hala soo cashuuro hantaas waxa laga soo qaado guryaha noocaas in laga hadlo stop ma tahay وما تنتهي مختار اسمنا فاهمين ايغا تجي لك بقول ما دافي حقي الى هذا ورنميو waxaan rabaa inaan kala hadlo guriga dulasho ma uleh war beela guriga dadkii baadayaan taaganahay oo lacagta ka qaadanay ee ma laga hadlo guriga dulasho ma isna ilay ila baqol ma dhaafo waxaan rabaa ugsada mukhtaar saaxiib waxaan rabaa marka inaan dhaho walaalayaal aniga waxaan rabaa inaan idin sheego qabyaaladda waa waxaan wax ku qaybsanay qabyaaladda waa waxaan hadii ilaahay ku roon yahay nin walba oo ku jooga magaaladiisa waa waxaan ku kala deganahay waa waxaan geela ku kala calaamadaysanay waa waxaan hadii ilaahay ku roon yahay ninba ninka kale oo hadii ilaahay ku roon aniga tagneeho anaka nawcina waxaan qabyaalada ilmaheynaba hargeysa lagu joogaa dhaxaraa lagu joogaa waxaa lagu joogaa beled xaawo waxbaan ku qaybsanaa waxbaan ku kala cunnaa sidaa awgeed meel taciis waa kaa ninka xil qabtaa waa taa qoladiisu ay ku qulqulaysa meesha madaxtooyada ma mariixaanaad maqli jirtaan sanadkan ka hor meel kasta waa taageen maanta safiir nabad sugid taliyo boolis taliyo military abtigiis adeerkiis gurceel asagaa ka ah muqdisho asagaa ka ah baydhabo asagaa ka ah shabeelloos asagaa ka ah taliyaha lugta taliyaha cirka ciidanka badda dhulka nabad sugidda meel kasta mariixaan ninkii xil qabtaa waa taa ay ku qulqulaysa kadibna habeenka iska dhaaf waa taa qofka xil qabtaa waa taa qoladiisu لي حاجيو
وعليكم السلام ورحمة الله. قدومية قبيلة الصوماليات الكاسو وعدي anigana dee boqorka qabiilada ahaye ورسولو نفي عنها تمرك واسرع كرنا يسولو maya war wax walba waxa igaga daran qabiilka laga gudbay dowladdu way dhaqaaqday horaa loo soconayaa maantay waxaan maraynaa wasiirkii warfaafinta ee farmaajo wasiir dubbe xalano intuu tegay oo wuxuu yidhi shirkaan ka qayb gelayaa waxaa la yidhi shirkaan maamulada loo wacay iyo madaxweynihii waqtigiisa dhammaaday adiga iyo mahdi guulad xaggee u socotaan wuxuu yidhi waxaan annaga matalaynaa somaliland markaasaa la yidhi dowladda maadi soo dirsatay maya annaga somaliland waxba nooma soo sheegina la yidhi qof uga qayb gelaayo iyo warqadna nalooma soo gudbin markaasoo haddana wuxuu yidhi dee annagu isaaq baynu nahay saddexdii afartii maalin oo shirka socday daaqaduu ka fiirinaya waxa socdo looma ogoleen gudaha bannaankuu soo istaago wuxuu yidhi dee dowladdii waxaan ku heshiinay 17 September samareed wixii lagu soo heshiiyey bay dowladdu ku dhaqaaqaysaa next day daaqaduu haddana ka fiiriyey niman oo awalba iswatay oo keligood shiraayay next day haddana intuu warfaafinta idaacad soo istaago wuxuu yidhi dowladdu waxay ku heshiiyeen shirkii baydhabo February haye muxuu ahaa shalay wuxuu yidhi dowladdu waxay ku heshiishay one man one vote in loo noqdo war ninkan Mr. Midnight wuxuu rabo iskaga hadlaa wallahi saakay waxay maraysaa xalada marka loo diiday inuu galo oo shirka ka qayb galo saakay wuxuu yidhi annagu isaaq baynu nahay isaaqa muqdisho marwaanta la yirina meeshaan dad baa la ballamiyey isku keenayaa isaaq meeshaan marti kama aha la yiri mana ku xasuuno mana la wicin marka loo waco isaaq ama somaliland ayaga imaanayo marka wasiir midnight waxaan ka soo jeedaa yiri saakay war aniga reer burcaan nahay reer burco warniyo gaali beyle ma keenaysa kan iga dhaaf dul yahay maya dee waa isla socdaan wasiir dubbe iyo mahdi guuleedaan ka hadlaya akhbaartan waxaad weydiin kartaa dhammaan madasha xisbiyada iyo kolley nin ciidan baa ahayd saraakiila kugu jirtee ceebtii ka dhacday xalale 4 maalin ku dhacday saakay wuxuu maraa aniga reer burcaan ahay reer burcaan ahay marka qabiil aniga horta hawiyihiina lawaadna ku daalay ma garat ballanna waxaan ku qaaday hawiyo dhan inaan daarood ka dhigo salaamaya أنا هذا عدناي وكان غادي وعرى أمريكا أنا كده المهم وعرى أمريكا أنا ده قبيلة ده وغدية والبلدين نيجي حل غرتها نيجي حل غرتها ما أنت مالك اسم ريحانة تاجن هو يدوكو يلا قبيلة ده مركز نيجي حل غرتها أسيع عدسة أو طول كيجي أو قبيل كيجي أو قبيل كيجي على علولو عيدا كيسي طول بالي وعلى علولو اسكو عد سوماهين هويك ورن واجبني هويك ورن واجبني محمد على جوجي طول بالي horta runtii waxyaabaha sheegayso dhan way jiraan dadkan ma baqan soo jeedaan beyle waxyaabaha uu sameeyahay dadkan inuu baado oo profession baado uu sameystay magaalada horta ka dilaacday haye dadkana hadda waa arkeen inay meeshaan u tahay baal ay tahay oo sheeko cusub ay tahay dhaqaale waa la waayay wax beel caalamad laga hayo ma jirto degadaas iyo garoonkan iyo dadkan muqdisho in la cuno oo meel kastan dhagax looga qataaray meydkana garbaha ku sitaan meydkoodana ay galabsadaan iyo dhaawacooda jiitaan oo tacbaan ay yihiin marka dadka horta hadda waxa waaye qof hadda canshuur laga qaadi doono oo keen la dhihi doono aqbalayso inay jirto u malaymayaan iyada waa gartay goormeen buufla waa isku ogeyni haddaba buuflaanku waa bilaabatay waa socotaa buuflaanka hadda waa taagan yahay dadka waa wada hadsan yihiin oo sababta waxay leeyihin canshuurta annaga hadda nala kordhiyahay guryahan la canshuura wuxuu yahay baylo canshuuri hataga somaliland canshuurta ka keenay taagan yihiin maya canshuurta abgaali habargiira haysa iyada laga qaadaa taas socomaysa taas waa diideen dadka hadda waa arrin mid canshuur laga qaadi karo magaalada jooga ma leh oo hadda ogol alaabteeniina waa noo hursantahay soomaha aan isku ogeyn baylan waqtigiisa waa dhammaaday cid dhegaysaysana ma lahan
marka laakiin waxaan kaa rabaa calolow inaad ii qortid biri isugu yeertid tolka aad ani habargeerta gaar u baxan abgaal gaar u baxan ee qoraan caawi inaan joogno qoorqoor iyo guudlaawe oo laba nimo habargeeriya abgaala nin mareexaana oo muqdisho go-ow ka yaala soo sheegay ninkii la dhihi jiray cali daacuun inuu yidhaahdo ergey aniga ii yihiin uyo ergey igu yihiin ogaadeen iyo majeerteena u dirsaday taariikh aan usoo joognay inay tahay oo aad soo gaartay ilmahaaga inaa uga sheekaysay la rabaa buu ku qor ma garatay iyo wixii dhacay iyo wixii sanadkaan dhacay buu ku qor in wasiirka qorshaynta qaranka kalluunka iibsaday oo dhahar weligaa ma maqashay waayahay abgaalkan balcad jooga oo habeen kasta gablee shimbirta dheelayo 80 habeen kasta u dhalaya wuxuu yiri ilmaha ay ku dhasha balcad ilmaha dhahar ka badan meel gurceel jiraan tagay aniga gabadha markay 20 gaarto 15 markay gaarto waa la aroosa maaqa magaalo balaayo ka kacsan waay gurceel ilmaha ku dhasha waxa ka badan ilmaha dhahar qorshaynta qaranka lacag uu ku geeyay ma garat waa xaasimada uu qabo dadkan uu qabo علي ومركز صاحب ما قبيالة هل غرميو قبيالة كل الله قال قبيالة هو أرتام تاجنا أنا قبل ذلك هل 10 قاضنا بقى أنا حتى 10 كنور دقي في عنا هذو قاضنا وآخرنا وأنا هاي سنوات وسنة باش ما بديهن قبيالة فهم سماه سيف عنا هاي سنوات وسنة ومال في عنا نقدر تسمع ويا مركي فرماج أو تقول سيد محمد أسكو عد ما هي أنا أسكت ورنواي هبرتان دارودك oo falaartu ku dhacdo habar xawaana aan dhahno talyaaniga ku qabi jiray awal waxa wataaka ee iska tag ma garat waa ka dhagax tuurka la sheegay xawada iyo sayidka iyo waxaas anaga shaqo kuma leeyin dhagax tuurka qaabo odayha wiyaal yiri odayha wiyaal la ciidu hel meel wal tuura war waxba naga ma kaleeyay anaga dad Kenya saarayna hadii waa in la saara odagii ahay farax gulle waa la saara mid mas'uuliyadda kalena waxay tahay hadda waxaad ku fikrowaan magaaladan joogo hadii odagaan meeshan waaba hadda waa ku wareegay waa socdaay wala daba dhigaa ma fiiri farmaajo daarosaas kuma tago farmaajo waliba daaroska injirta waay waa shilin waay meeshu ku dhigo waa ku dhintaan le ma garat kan waa ama waa dhima ama tago waa kan nadiif ma kan si daahimay hal mid kala marka la taagay magaalada dadku ku joogo waxay taageen qoray aan qorgayn ahayn qoray hawiye ahayn magaalada inuu ka shaqeeyo ma dhacaysay غير واي الله نجارسي مركز أنا شرب بيناه قش قبل شنبر قري أن قري إنه كشقي فوتو قرو قري أن قرها ويا كم شقي تبلا أن قرها ويا كم شقي كونفر قلب أن قرها ويا كم دح شقي قري أن قري إنه كشقي مقالنا مدعي سقف لا كماشي كتم هادو معمول كنا متقنا دربوا إني يحجوا كان معمول كماشي أنا قاعد ساين أنا قاعد ساين هوية وتشايو نينك اللي راه عدقابو وعيرة هوية وتشايو هوية يسوي ماذا حفر ديستو قري أن قري قولها إني وصعنين نينا نكوده هني يحكم كغابنين الله أقبل الله أقبل قلمدك يا إلهي كم ترى هذا هالشباب وإن الله تساعدت مثله وأنا حين دت الله كان صريح أو الله ده أنا قال لنا هاي أو كوكل صونا وهدوا حتى كبحنا حتى أيجا مثله أود نقوله إذا نروحيست واكو فهم ألبتني مجا قبضني عشان أشوف شيء جيني ونوتها سماه وغمير سنتها ساسونا غمير سنتها قول بكو سلام عليه وقارن كو سواعا وانو هدو وايه سيدا أود waxaan rabaa inaan dhaho walaalayaal aniga waxaan ka hadlaa waxay tahay taliyaalda soo baxday waa qof xil qabta waa taa qoladiisu mariixanka gado si farmaajo u yimid mariixana dheeraaday habargiir waa gaabatay abgaal waa ka hoos maray murashada waa la buurtay xuuda waxa u baxsan aw xasan iyo khadiija diiri waa la hoogay oo la jabay gubo waa leexday geelay waa tagtay unti ay noqotay arradii ilaahu qabiilkayga saan u fahmay dadkii u fahamsi ilaahu qabiilka sida mariixan u fahmeen hawiye u fahamsi ilaahu qabiilka sida majeerteen u fahmeen hawiye u fahamsi ilaahu rabbiyow lo'daan dhaafi ninka ilkaha weyne ogaadeenka niyo maxuu sheegi rabaa waryaaree amuudaan jamaal waa ku salaamay labada ka dhacdo haye maxaa dhihi lahayd qabiilada hawarta midda koowaad aan rabana waxa weeye waxa laga hadlay qabiil horta qabiilka dadku waxay kala garan lahaayeen wax leeyahay qabiilad iyo qabiil qabiilad waa midda foosha xun oo farmaajo isticmaalo qofka dambiilaha iyo reerka ku jira intaad
duurka kasoo kaxaysid inaad dhowr milyan siisid oo aad wadamada adduunka ugu raaxada badan ee guriga aad siisid ma garata taasaa qabyaalada in qabiilka waa midda lagu faano oo hayto qofka hayto dambi walaalka ay dambi haddii laga galo aad u hiilin kartid ma garata waana waxaad ka hadasha kaaba qabiilo xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa jiray in la dhihi jiray saxaabi tamaamo la dhihi jiray waa garanaysaa umaleyn masaajidka nabiga ku xiri jiray dhowr jeer uu yiri boqorka reeyama ma waayo haa markuu soo islaamay faa'iidada ninkaa lagu qabay markuu soo islaamay wuxuu u noqday nabiga sallallahu alayhi wasallam in qabiil dhan oo la dhaho reer yamaama uu ku jiray saxaabigoona abu hureyre iyo xudayfa ibn al-yamaam iyo raggii ogeey maya abu hureyre waxa waaye waa dows waaye reer dows waaye dufayla keenay dufayla keenay la yiraahdo oo miskiin ahaa abu hureyre keenay abu hureyre waxa uu ahaa reer dows uu ahaa laakiin ninka keenay dufayla la dhaho dufay bin amr ilaa malaya dows laakiin ninkan markuu soo reeyama ma qabiilkiisu dhaw kana boqorka reeyama qabiilkiisu lan dheer oo waliba jidka la marayay qorayshtu neeftu ku dhijiyay quraysh buu cunaqabateyn saaray qamadigan ama sareenka buu ka xanibay inay u soo gudubto meesha la yiraahdo ilaa ay iska bariyaan oo dhaheen nagala hadla marka qabiilku horta faa'iidaas uu leeyahay qofka qabiilka waa la xushmeeyaa duusan isagu uusan xushmada uusan naftiisa u diidin ma garata geela calaamadaha ku kala dhigana calaamad qabiil waaye waa arrin aad u wanaagsan bijamal waxa dadku maxaa dadka lagu kala garanaya jamal aniga adiga maxaa lagu kala garanaya dadku ma حيوان ما عاد ده إلهي يا وحول وجعلناكم وحين كدقنا شعوبا وقبائل هذا حيوان لو قص هذه كود بتشبه ما حد قرنت لو قص لو سكين قرن بس تعرف توس كفو شاب حديث علامة الله حديث علامة الله حديث علامة الله تي وتقول حديث أنها علامة الله لكن بني آدم إلهي سمي مقع جمال هذا واحد لقى يابا قرني كذب مقع هذا النوع كلاين قبيل وين نقضان با أو قبيل صوبح مقعيدا adiga adduunka naftaada u jeceshahay walaasha iyo walaalka iyo hooyada iyo aabaha ku xiga soo ma aabaha aabihiisa ku xiga ogaadinku waxay dhahan awowgaagii dhakada laga cadaab markay abaartamayaan laakiin dhibaatada jirta waxa weeye qabiilkaaga ii soo qabo oo dhagaha ii qabo taas baa la diidan yahay jamaalow wax aan diidanahay qof bini aadan in la gumeeyo oo dhaqan xumo lagula dhaqmo qofka bini aadanka wax laga dagaalamo dhibaatooyinka laga dagaalamay ka mid marka caliyara dhibka haysta waxa weeye ma uu garanayo farmaajo dantiisa uu gartay yani wuxuusan garanayn dahar iyo wuxuu ugu doodaya aanu ma garan karo laakiin dhibaatada jirta waxay tahay ma uu fahmayo nin adeerkiisa la weeraray iyo dhibaatada arrin uma muuqato kursiga waxa u muuqdaa maxay farmaajo iyo jamaal iyo saanguro dhan marka problemkan haddii weliba anu waxaan u malaynaya dhibka isaga haysta kolley meel kalu ka jiraa oo waxaan u malaynayaa dee qofka sartu meel kale ka qurunsan tahay laakiin haddii qofka bini aadanka uu ku xisaabtamo awoodda kursiguna awood buu leeyahay jamaal oo waa arkaysaa waa qoryada kursigu waa qoryo lagu dagaalamo waa qoryo lagu dagaalamo hadduusan wax macana lahayn khadiija 20 sano ku fadhida laga kicin lahaa magarad dadkeedii baana garanayn oo dhulka isaga jira marka insha Allah dhibkan jamaal waa laga baxayaa iyo dadkan dhibaatada wadanka ku jiro dadka Soomaalida aan camal la'aantii baa ka badatay dhibaatada hadda waxay dadka Soomaalida hadda waxa lagu mashquuliyaa ciyaaro iyo kubad iyo waxaan baxadan markaan nimaanayaan ogaana dadka adduunka jooga in maalinta la kubadda la ciyaaro waa sabti axad waa maalmaha ay gaaladu dhahaan weekendiga oo maalmaha ay fasax yihiin annaguna waa maalmaha ay shaqada aadnaba oo dugsiyada iyo iskuulada iyo maalmihii iyagu fasax ahaayeen baan kubaddooda iyo macna darooda ku mashquulayna dhibaatooyinkana haystay ka mid tahay aad iyo maasanta guulisa saaxib macane uu salaamaya guulisa saaxib macane waxaan markii aan dhawanayaal aniga waxaan ka hadlaa waxay tahay aniga waxaan joogaa on rabaa qof kasta hawiya inuu qalin soo qaato farguudan ku qoran tahay uu ku qoro caawi waxaan joogaa 2020ka 2020ka bisha maarso misa 25 maarso caawa oo habeen jimcaha soo galayso waxaan noolahay adduunka joogaa anigoo kuwii imatalayay oo qaraasteeda ku fadhiyay ay erga ka yihiin iyagoo jooga magaalada muqdisho nin mariixaana ay erga u yihiin niman doonaya inay bahalka iska qabtaan asaguna uusan qarnayn oo public ku soo qorayo inaad u joogtay taariikhda qoro caaway dowladda Soomaaliyeed ay dhacday 4 sano kadib beesha kaliya ee la cashuuro in ay yihiin beesha kaliya hostage ku afarmaajo wax ka hadlaya iyo wax u damqanay aan la arkin beele saaka u sii baxsanayo meedka garbaha ku siidata 4 sano ay ku dhacaysay gaboodfal bini aadan ku dhaca waxa ugu daran oo lagu sameeyo waa qofka in moralka laga dilo
moral torture imisan dhahay mataqaanaa moral torture bini aadanka meel laga naafeeyo oo maskaxda ka liidata lama arko dad baa la aaminsiiyey dhalad ah nasab ah inay boon yihiin loo sheegay gabdhooda inaan la guursan karin gabadhu ay aamintay inay iska tumato laga dhaadhiciyey lagu celceliyey nasab maa hidin nasab maa hidin nasab maa hidin markii dambe way qaateen hawiye maanta waxay dhegaysanayaan dhahar ayaan laga banaan bixin markaasaa caliyara usoo qaadanaya markaasuu leeyahay dhahar dadka jooga maxaa laga rabaa caliyara usii dhahaya markaase qaar badanoo hawiya commenta ka bixinayaan dowladnimadaa la diidan yahay leeyihin hawiye maanta waxaa la baray in looga sheekeeyo nin dambiilo shalay laga dhigayay kenyaati ahaa hub lagu qaadanayay dhaqaale lagu bixinayay wixii waddanka yaallo dhan in lagu rarta la rabay laba nin oo qaraabaa oo ninba dhagax soo tuurayo ee dadka dhaxa wixooda laga qaato awgool hawiye lala dheelay markii hubkii la dhammaystirtoo la geystay si hubka loo xalaashaysto oo la yidhaahdo meesha dhibaata kama jirtee maxaa la soo celiyaa kenyaatigii soo duulaya caawa ma jiro nala ka gaday xuduudda qabsanayay dhulka soomaaliya weerar ku soo ahaa ciidankii gurguuranayay nimanka hawiye soo dhigi jireen oo soo dhigi jiray cabdiciis africa iyo ninkan saaxiibkii bashiir maraykanka jooga oo salebaan sanadkan waa ka yaab laftooda sida cayrka keli caadi lamid yahay waxba ma dhaamaan uu soo dhigaya ninka bashiir la yidhaha waa saaxiibkii ninkaas waa dhaamaa cabdiciis africa wadannimo dhaamaa laakiin uu soo dhigayay askari gurguuranayay kenya u socda aa u gurguurashada xagii ku dambayse wixii loo gurguuranaya maxay ahayd yaa awgoolkaas loo dheelayay marreexaankii waxay isku sheegeen hubkii dowladdiisa hadbal markii dhacaysay horteena lagu kala qaatay waxba maanaan helin dhulka hubaa lagu qabsaday farmaajo haddaad tagaysid hubnowkeen hawiye waxay ogeystaa sidaa awgeed ku day waayo oo ku day doqonaa u jabtay sidaa awgeed caaway aniga waa xanuunsanahay ma ila xanuunsanaysaa caawa aniga waa xanuunsanahay qabiilkayga wax matala ma leh caawa aniga waa xanuunsanahay buugga kuma qorini caawa aniga waa xanuunsanahay ajandaha wax kuma lihi caawa aniga waa xanuunsanahay soo jeedin ma lihi caawa aniga waa xanuunsanahay diidma ma lihi caawa aniga waa xanuunsanahay ciidan u dacwooda ma aqaan caawa aniga waa xanuunsanahay dadkayga waa dayacan yihiin caawa aniga waa xanuunsanahay rajada dadkayga ay leeyihiin uma jeedo hogaamiye u soo socda oo u soo baxayo meel gaarsiinaya caawa aniga waa xanuunsanahay taladayda aniga ninka igu sarreeya ee musharaxiinta dadka ugu sarreeya iyo aniga isku waxaan ka hadlaynaa waa cabanaynaa waa cabaadaynaa bal anaa ka qaylo badan oo le dadka maa loo naxo gacanta gudaha u geliya kuwa idin dooran lahaa kuwa idin bannaan bixi lahaa xisbiyada aad sheegaysaan kuwii ka mid noqon lahaa waa la dhacay waa la baartay waa loo soo shaqo tegey siday ku qabatay dadka muqdisho keliya waxaad dhihi laadihin keligood in la cashuuro ugandhes iyo maraykan iyo un iyo ingiriis waxay u sheegi kartaan dadkan waa qabiilkeennii meel kale cashuur lagama keeno waqtigii waa dhammaaday laguma dul hay karo sidaa awgeed dekedii eerboorka lacagta ka soo baxda ayakaan rabnaa inaan wanaag ugu samayno waxaan ugu samayno joojiya wax dhahaya male wax usoo baxaya male banaanbaxeenu ujeedadiisa maxay tahay kursiga farmaajo banaanbaxeenu ujeedadiisu maaha dhibka dadka muqdisho inay ka baxaan maaha hadduu yahay banaanbax annaga ujeedadiisa madaxda musharaxiinta beri ajandahaas ha keeneen dadka muqdisho dhibka inay ka baxaanaan doonaynaa cashuurta laga qaaday in lagu soo celiyaan doonaynaa madax inay doortaan baan doonaynaa dekedii eroboorka dhexdooda ku yaalla lacagta laga qaato iyo lacagta lagu bixiyo adduunku ku bixiyaan ee muqdisho la siiyo meeshay ku baxdo in ayaka loogu sameeyo isbitaalaad iyo caafimaadaan doonaynaa amnigooda in lagu sugaan doonaynaa kufsiga in laga daayaan doonaynaa dilka in laga daayaan doonaynaa waddooyinka carsaas dhaha dadka waa idiin soo baxayaan ma la celi karo qoryaan lagu celi karin waxba laguma celi karo darbiyaday soo jabsanayaan laakiin ajandaagu hadduu yahay banaanbaxaan rabaa inaan dhigo ujeedadooduna waxay tahay farmaajo inaan maqashiiyo waqtigaaga waa dhammaaday dhiigyacbow iska bax waqtigaaga waa dhammaaday keliga teliyo iska bax laftigeeda waa fiican tahay laakiin fikirkii hogaamiyaha meesha ka maqan hogaamiyaan u baahannahay hogaamiye waxaan u baahannahay ximaayad leh hogaamiye waxaan u baahannahay damiir leh hogaamiye waxaan u baahannahay garanaya cidduu ka soo jeedo hogaamiye waxaan u baahannahay isirkiisa u damqanaya hogaamiye waxaan u baahannahay aabbihiis u damqanaya hogaamiye waxaan u baahannahay abtirsigiisa iyo nasabeediisa u damqanaya hogaamiye waxaan u baahannahay sida hogaamiyaha daarood uga damqanaya dadkiisa uga damqana dadka weeye ma hayno kaasaanan hayn sidaa awgeed qabyaalada kor u qaada ay ku qulqulayseen warhawiyo ku qadeeya ku quracda ku qasheeya oo haddana ku quracda waa noo qabyaalada qabyaaladu ha waarto
qabiilku ha waaro aabbaha ha ka dhuumanin awowga ha ka dhuumanin isirka ha ka dhuumanin gurigaa ba'yi waa wiyaaba cabsadaba aniga reebalaan qaaraa naxay guntu dadku markay jabaan oo badanku bato qaaraa qalqala oo qabiilkooda xataa garan waaye aad baan uga xumahay nasab baa tahay ka'ab 1,000 sano waxaad eed ayaad ahaanaysaa hawiyaa tahay orijinkaagu waa hawiye cid kaloo barey kuu qabanaysa male si kasta u orod sidaa awgeed inaad dagaashid oo xorriyaddaada u dagaashid waa horumar ka mida in aad dadkaaga kulanba waa kasii bixi lahaaye maxaad dhiilay waa kaa qaadi saxmaan horta waan ku faraxsanahay inaad caawa hees qaadaya aad shidnay in badan baan ku lahaa baasha qabyaalada waa la naaxiyaa umad baa la siiyaa waa la nafaqeeyaa marka alxamdulilah mar haddii aad caawa heestaaba soo heshay haye markaa waxay u baahan tahay baasha haddii aanad wax dhawa fara kuhayn haddii aanadaan naaxinaydaan nafaqeynaydaan u ilaalinaydaan wax fiican aan la siin horta horumar ma gaadha moogta waan ku faraxsanahay inaad heestaa caawa aad maraysaan ku qadeeya aad maraysaan ku quraacda ku casheeya aad maraysaan heesta hadda kadib waa heesta raadiyo qabyaaladda abliya raadiyaha qabyaaladda hadda kadib raadiyahan sanadkii hore markaan ku lahaa 19kii 20kii markaan ku lahaa qabyaalada wala naaxiyaaya mukbad siiyo nafaqeeyo naaxiya wad la yaabanay neef caataan uqal mida neef caataan uqal hadda mudbuuran uqalayna aad iyo aad waa sii bixi lahaa qolan baa rooshan ka tegi waay waxaan rabaa marka inaan dhaho walaalayaal qabiilkaaga yaa waay ana wiil hawiye ana wiil hiraab ana wiil gorgaarte walaalahay ma dhibaan anaa ka tegi hawiyaan ahay ha isku dhaqanani hadda ma dhibaan waxba isuma taraan sidoo kale waay wiil gorgaarte ana wiil hiraab ana wiil habargidir wiil cayr ayaan le ana min jabaal asluhu min nasabi waryaa nasabkaaga sheego ku qadeeya oo ku casheeya qabyaalada asalaamu calaykum waraxmatullahi